والله نحريست بدن أما الرحمن الله الرحمن كان حريست بدن علم وحو بري النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قرآن كبري خلق إلهي وحو أبوري الإنسان ددكب أبوري مركو أبورينا علمه ددكي وحو بري إنسانكي وحو الله بري البيان وحعدينت إن وحلا عديو والشمس قرحذي إيا والقمر ضيحينا بحسبان حساب إيا قرشي كسعودان والنجم حدقه إيا والشجر جيذهين يسجدان إلهي بأسجودين والسماء سمدين رفعها إلهي وكري لي ووضع وحو إلهي دغي وددك ودغي ودجيي الميزان ميزانك أي حقوق دودا كو كلا قاتان وحو إلهي كو يري الله تضغوا هكو حد قدبنا حد قدب هكو سميننا في الميزان ميزانك أي حقوق دودا كو كلا قادتان حد قدب هكو سميننا حسكو ظلمينا وأقيموا توسية وهجاجية الوزن ميزانك markaad wax kala miisaamaynaysan xuquuq kala qaadanaysaanna xuquuqdii si cadaalada u kala qaato toosi bilqisdi si cadaalada miisaanka u toosi walaa tukhsiruu hadhimina almiisaana miisaanka hadhimina oo qofna xaqiisii ha ka dulmina wuxuu ilaahay ka warramaya tabaaraka wa tacaala nicmooyinkiisa qaar ka mid waxay leeyihiin bacdu almufasiriin marka la leeyahay alraxmaanu callama alqur'aan allah raxmaanka wuxuu dadka baray qur'aanka waxay jawaab u tahay markii la yidhi usjuduu lilraxmaan allah raxmaanka u sujuuda ayay dhaheen nimankii quraysh wama raxmaan oo raxmaan waa maxay who is raxmaan aayaddu marka su-aasha ah who is raxmaan raxmaan waa ayo ama what is raxmaan raxmaan waa maxa taasay aayaddu ka jawaabaysa oo waxaa la yidhi allah raxmaankee la sheegayo waa midka tilmaamaha leh sidaa yeelay waxyaabuhu sameeyena waxaa ka mid ah callama alqur'aan raxmaan horta waa kaas khalaqa alinsaan علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان إلى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان رحمن كالذين وأي هرت وامدك انتهى سمي وقضب مثلا الله بعد مركل ليه علم القرآن إلهي قرآن كو بري يو بري قرآن كإلهي علم لبا مفعول بيقاضتها مد باجوغا كي هربا قوان النبي كو بري صلى الله عليه وسلم أيضا معنى هذا مركب وحو نقول يا علم إلهي وحو بري نبيه نبي جيسى القرآن قرآن كو بري نبي كو نمد سو قارسيي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه سنو قارسي عليه الصلاة والسلام marka nabigu ilaahay quraanka bar nabiguna umadiibu macallin waxa uu sii bar waxay marka aayadu raddi ku tahay sida mufasiriintu ay leeyihiin callama alqur'aan qowlkoodii ahaa inama yucallimuhu bashar waxa muxamed quraanka baray bini aadan qof bashar oo bini aadan baa baray taasi jawaab u tahay waxa la leeyahay bini aadan ma barine الرحمن علم القرآن الله الرحمن كابا بري ابن آدم ما بري مركوا كلام الله حق إلهي بكيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الله حكيم خبير كحجز أيوك سود دقي وقرآن كيم كلام كسيو
marka ma aha kalaamu lbashar waa kalaamu qowlu khaaliq albashar. khaaliqu lbashar hadalkiisii wey. marka callamahu lqur'aan waxay raddi ku tahay waa qowlu lbashar. kadib baa ilaahay wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala khalaqa alinsaan, ilaahay wuxuu abuuray insaanka. min acdami nicami illaahi tabaaraka wa tacaala cala alinsaan waxaa ka mid a abuurka uu abuuray. ilaahay baa sameeyey tabaaraka wa tacaala. marka uu sameeyena maraaxil buu maray lagu tilmaamay fii suurati alxaj bilowgeeda iyo suuratu lmu'minuun bilowgeeda. asalkii bini aadamku meeshuu ka yimid iyo maraaxishuu maray suuraddana meelo waxbaa la tilmaami doonaan arki doona haddii ilahay idhaah. waana midda ilaahay sheegay maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaara waqad khalaqakum atwaara. atwaar yacni heerar iyo different stages iyo maraaxil kala duwan baa abuurka bini aadamka u maray. khalaqa alinsaan, insaankii buu ilaahay abuur. markaasaa la yidhi callamahu wuxuu ilaahay baray insaankii albayaan, wax caddaynta, in wax la caddeeyo. يعني waa alifsax ama fi damaa'ir, waxa qofka qalbigiisa ku jira ee naftiisa ku jira inuu sharxo oo bannaanka uu soo dhigo iyo sidii bannaanka loo soo dhigi lahaa buu ilaahay baray. hadduuba qofku hadalku ku dhagoon hadli karin soo cajiib ma inaad hadasho oo waxa qalbigaaga iyo maskaxdaada ku wareegaya aad bannaanka soo dhigto oo dadka la sheer garaysa waa nicmo ilaahay oo lagu ogaado what you like and what you don't like. maxaad rabtaa maxaadan rabin waa nicmo ilaahay. waxaa garan kara oo fahmi kara qofka hadalku ku dhagan yahay aan hadliba karin. callamahu ilaahay dadkii wuxuu baray albayaan, wax caddayn, waxa qalbigooda iyo maskaxdooda ku jira inay bannaanka soo dhigaan ay caddeeyaan. sida marka ay ku caddaynayaan ilaahay wuxuu siiyey wasaa'ilulbayaan, miiniskii iyo wasaa'ishii iyo waxyaabihii ay dadku wax expresska ku samayn lahaayeen ay wax ku caddayn lahaayeen. afkii buu ilaahay u jaha. sidaa darteed dee jirka inta kale kama hadli kartid, tilmaam waad ka bixin karta laakiin kama hadli kartid. afkii buu ilaahay u jaha. bishimi iyo carab buu u sameeyey, dhuun buu ilaahay u sameeyey. qalbigii iyo maskaxdii waxaasoo dhan kiib garayn lahayd ee hayn lahayd ee waxani ay ka iman lahaayeen ee santarka u ahayd buu ilaahay sameeyey. walidaalika baa xubnaha aynu u adeegsanno hadalkeenna inaan bannaanka soo dhigno oo waxaan aaminsannahay aan sheegno. xubnaha aan u adeegsanno waa nicmo min allahi. ilahina wuxuu ku sheegay fi suurati albalad alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn. carabka iyo bishimaha qofku hadduunan carab laayahay ama bishimuhu go-an yihiin siduu rabo waxba uma sheegi karo. waa wasaa'ilulbayaan, wasaa'ishii iyo qalabkii waxa qalbigaaga ku jira aad bannaanka ku soo dhigi lahayd waa carabka iyo bishimaha iyo dhuunta iyo afka ilaahay kuu jeexay. callamahu albayaan, ilaahay dadka wuxuu baray wax caddaynta, waxa qalbigooda ku jira inay caddeeyaan. ilaahay waa allah raxmaanka horta midkaa wey. ashamsu waalqamaru bixusbaan, waxaa la yidhi qoraxdii iyo dayixii bixusbaanin xisaab bay ku taagan yihiin, xisaab bay ku socdaan iyo qorshe ilaahay. xisaabta ay ku socdaan waa midda adduunku ku shaqeeya uu ku dhisan yahay. socodka qoraxda iyo dayaxa ayay ka dhashaan habeenkii iyo maalintu. habeenkii iyo maalinta ayay yani saacaduhu ka kooban yihiin. usbuucuna rownkaasuu ka dhashaa, wiigu. kadibna bil baa ka dhalanaysa, sanad baa kasii dhalanaya. marka qorshe ilaahay uu ugu talagalay adduunka inuu ku maamulo oo dadku ay nolol maalmeedkooda ku maareeyaan oy ku saleeyaan noloshooda, qorshe noocaasaa ku jira qoraxda iyo dayaxa ay ku socdaan. waqtigii loogu talagalay marka uu dhammaadana xisaabta ay ku socdaan way istaagaysaa, ma sii soconayso. xisaabtii loogu talagalay adduunka inay ku socdaan way dhammaanaysaa. midda kale xisaabta loogu talagalay waxaa ka mid a in dadku qoraxda iyo habeenkaas, qoraxda iyo dayaxa ay yani dayntii ku kala qaataan. ilaan bishii baa dayntii lagu kala qaadanaya, mushaharkii lagu kala qaadanaya, dumarkii ciddada tirsanaya ay ku ciddo tirsanayaan,
xajkii biluu ku xidhan yahay muxuu ahaa salaadihii awqaad iyo time iyo saacaday ku xidhan yihiin soonkii time buu ku xidhan yahay walidaalika baa في سورة يونس الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب زمنت الشمس والقمر بحسبان والرحضة يضيح حساب يقرش إلهي بيكوس عضان وددكنا وحكو حساب صدان إلهي نقول تلقى لي ددكو إن نرش هذا أي كوس عض والنجم حديه والشجر جيده يسجدان إلهي بيسجودين إلهي بيسجودين النجم لبا تفسير باكو جرتا إن لا يراهدو النجم حديه وانا تفسير كسيدا ظاهر كا أسود دقيقة قلبي إيا إن لا يراهدو النجم نبات كدولك كسو بحقيدها يرير إن جريد أضق يعني سلك أضق لهين geedaha yaryar dhulka ku faafa markay baxaan baa iyagana najmi la yiraahdaa geedaha waaweyn ee jirida leh kor u baxaana shajar baa la yiraahdaa oo marka ayada tafsiirkeedu wuxuu noqonayaa wan najmu nabaadka dhulka ka baxay geedihii yaryaraa iyo wa shajaru geedihii waaweynaana yasjuda labaduba ilaahay bay sujuudaya iyo tafsiirka daahirka oo ah wan najmu xidigihii iyo wa shajaru geedihii ba yasjudan ilaahay bay sujuudaya الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان تفسير كان دمبور رجحيا نجمي إن لا يوضح حدقه وخير ما يفسر به القرآن كي سيقاس فسره نجمي يا شجر كسجودة وحو إلهي كفا فاهيي أو كشيغي في سورة الحج يرى الله يوضح النجمي حدقه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر النجوم واحدقيه سمعت مركا حدقها جمع آيات شيكتو ويكتن مركا تفسيرك وحوي والنجم حدقيه مركا حدق بهدل لكن حدقيه بالغوض إيه والشجر جيده بيسجدان إلهي بيسجوده سجود أي حدقوه إيه جيده إلهي بيسجوده يعني وسجود حقيقي أول لكن دينوغ ما فهمينه waxayna la mid tahay makhluuqa ilaahay faraha badan ee ilaahay caabudaya sida ay caabudayaan inaan garanayna in rabbigooda ateecay wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbiha kadibu ilaahay wuxuu yiri was-samaa samadina rafa'aha ilaahay wuu koriyay rafa'aha ilaahay wuu koriyay tabaaraka wa ta'ala أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها waxay la mid tahay aayadan uu tagi doona fi suurati qaaf afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha sida dushoodan uga dhisnay marka samadiina ilaahay uu kor yeelay korkeenu dhigay wa wada'a ilaahay wuxuu dajiyay oo uu dadka ugu tala galay al-miizaana miizaanka waxa la yiraahdaa waxa hadda loola jeedaa waxyaabaha ay dadku ku kala qaataan xaq ay isku leeyihiin ama ha noqdo waxyaabaha kiilaha iyo bawnka ka lagu miiso ama mitirka wax lagu cabiro ha noqdo ama ha noqdo maylka iyo kilomitirka wax lagu kala cabiro ama ha noqdo kan dharka lagu cabiro ama ha noqdo muxuu ahaa waxyaabahan kale ee sida tanka iyo waxyaabahaas miisaanka waxaa loola jeedaa wax kasta oo bini aadanku xuquuqda ay isku leeyihiin ay ku kala oofsadaan oy wax ku cabiraan ama ha noqdo dhul la cabirayo ama shay liquid oo la cabirayo ama cunto la cabirayo la miisayo ama la miisaamayo whatever ama baabuur la rarayo tankiisa la ogaanayo wax kasta oo bini aadanku xuquuqda ay isku leeyihiin ay ku kala oofsadaan ay ku kala qaataan oo la cabiro ayaa waxaa la yidhahdaa almiisaan baa loola jeedaa hadda miisaanka ilaahay ku sheegay sida sheekh maxamed shanqiid raxmatullaahi caleyhi uu leeyahay في سورة الشورى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان هي متك سورة الحديد أنا قلت جدون إن شاء الله تعالى سورة كحيت لبدا ميزان وحالو لك هذا عدالة هي justice كإلهي وقلت لك الدون كإن لو قلنا عدالة بإلهي دتك وسودك لكن ميزان كسورة دني أي شيء هو ميزان كعادي وحلو عبره حق لو خلقات
تصورة الرحمن كجرت والأرض وضعها للأنام والسماء رفعها ووضع إلهي وحو دغاي او ددك u dajiyay الميزان ميزانka ay xaqa ku kala qaataan إلهي wuxuu yiri alla tadqaw dadawha ku xad gudbina oo ha isku dulmeena fil miizaan miizaanka oo qofna xaqiisi يعني xaquna lahayn inuu ku qaadanin miizaanka xaq aan ahayn marka wax la cabiraya ha qaadan waylu lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون نبي الله شعيب مركو قوم كيسي لها اللي وحاوكو يري أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين في سورة هود سورة الشعراء إلى سورة بمكاورة الله تضغوا هكو حد قد بنا في الميزان وحيابها الميزان إلا بيقو إلا عبرو هكو حد قد بنا ظلمي هقاذننا وأقيموا توسيو هجاجية الوزن ميزانك بالقسط عدالة أنقفنا إحيى قردركو أهين ولا تخسروها خسارنين وهدمنا الميزان ميزانك خسارنين يعني وحال الديدة يا قفك حقيس إنا دودسيسو أو حقيسي قفك أدك قادته si kastaba aad ugu adeegso ama daasadii iyo koobadii wax lagu miisay isku jajabi ama dhagxaantan wax lagu miisaamo wax ka bixi ama cabirkii iyo mitirkii wax lagu cabirayay qayb ka jar ama dhulkii marka la cabirayo yani si isu daba mari whatever si kastaba ha ahaatee ilaahay wuxuu leeyahay walaa tukhsiru lmiisaan miisaanka ha dhimin oo ha khasaarinin والأرض أرلذين إلهي وضعها إلهي ودغي oo wuu goglay للأنام uunka iyo makhluuqa ayuu ilaahay u goglay anaamta waxaa loo isticmaalaa jinka iyo insiga waxaa kaloo loo isticmaalaa khalaa'iqda ilaahay oo dhan waalarda arladiina wadacaha ilaahay wuu goglay oo wuu dhigay lilanaami addoommadu ilaahay u dhigay qayb beeray ka dhiganayaan qayb guryay ka dhisanayaan qayb warshaday ka dhiganayaan qayb masaajid iyo industry bay ka dhisanayaan qayb muxuu ah laamiyay ka samaysanayaan qayb dadkay ku xabaalanayaan danahooda dhan bay ku qabsanayaan alam najcal al-ardha kifaatan ahyaa'an wa amwaatan waxay la mid tahay aayadaynu soo marray wal arda farashnaaha fa ni'mal maahiduun dhulkaan idin gogolay ilaahay iyo aayadii aan ku soo marray suuratul mulk huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manaakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur aayad aad u fara badan wal arda madadnaaha dhulkiina waan taagnay waan fidinay aayadahaas isku macnayn wal arda arladiina وضعها إلهي ودغاي او غوغلي ددكي بو إلهي ودغاي هدنا و اوغليسي للانام خلائقدي بو إلهي ودغاي فيها ارض دحديده ما اها دول اسكا صحراء او قلالن او cidla ma aha إلهي wuxuu inoo sheegaya dhulka markuu inagu abuuray inuu Ilaahay dhulka ka dhigay meel ay nolol ka suurowdo oo lagu noolaan karo meel engegan on biyo iyo baad lahayn baadka waxa la yiraahdaa biyaha waynu naqaanaa laakiin baadka waxa la yiraahdaa waxa lagu nool yahay la cuno ama dadku ha cuneen ama animalsku ha cuneen kaasa baad la yiraahdaa Ilaahay dhulka marka kama dhigin meel biyo iyo baad aan lahayn Ilaahay kama dhigin ee wuxuu ka dhigay meel ay nolol ka suurowdo oo biyo iyo baad lagu noolaan karo wali waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah arlada rizqa Ilaahay uu dhigay hal shay ma hadday noqoto xagga midabka hadday noqoto xagga tastiga iyo dhadhanka waa different colors and tastes iyo wali vitaminaadka iyo waxyaabaha laga helo dhan way kala duwan haddii hal shay uu ahaan lahaa balance uu inaga lumi lahaa every single day hal shay haddaad cuni lahayd ka war maalin kasta hal shay haddaad cuni lahayd bariis keliya digir keliya every single day in your life soor keliya rooti keliya bini aadamku wuxuu jecel yahay tanwiic يعني وحيابه محوها diversity وحيابه كلا دوان اسكو قصان بو بنيادم كو جعليه كنا وحكاه ليو كنا وحكاه ليو كنا وحكاه ليو إلهي دولك marka wuxuu ka dhigay mid waxyaabo badan oo risiq ay yaalaan oo kala duwan fiiha arlada dhaxdeeda waxa ku sugan faakihatun fruits khudar iyo wan nakhlu geeda timir ذات الأكمام timir taasoo ذات الأكمام قلل أصاحبه قلل أف صومالي وي
waa plural singularkiisuna waa gal wey kumka waxaa la yidhaahdaa timirtu markay midhaha bixinayso waxay soo bixisaa yacni shay gal ahaan oo kale ah oo ubax iyo flowersku marka hore ay ku dhex jiraan galkaasaa kala dilaacaya halkaasa waxaa ka soo baxaya dalcigii iyo ubaxii fiidiisii baa ka soo baxaysa tii baa marka laamo yaryar noqonaysa oo midhihiina ay fuulayaan marka akmaam waa jamcu kimmin kimmiguna waa galka hore ee qubka ah ee ubaxaasi marka hore uu ku daharan yahay coverka u ah waa cover isagaa dilaacaya marka coverkaasaa dilaacaya oo kala baxaya kadib marka wuxuu soo deynayaa flower iyo waxyaabo laamo yaryar sii noqonaya oo midhihiina ay fuulayaan marka alakmaam waa jamcu kimmin waana galka flowerka ku jira wey ee kadibna laamuhu ay ka sii baxayaan fiiha wannaklu timir buu ilaahay uu arlada dhexdeeda dhigay daatu lakmaami oo galal u saaxiiba waa galka ay ubuxu ka soo baxay walxabbu buu ilaahay dhigay arlada dhexdeeda raashin alxabbu raashinka wey sida gallayda digirta waxyaabahaas walxabbu raashin buu ilaahay dhigay arlada korkeeda raashinkaasoo xabbigaasoo dul casfi bal u saaxiib ah raashin bal leh casfigu waa koonka xabbigu waa koonka casfiguna waa liifiska koonku leeya geedka koonku uu ka baxo ama gallayda ama raashinku ka baxo liifiskiisa caleentiisa casfi la yidhahdaa ilaahay waa kula tabaaraka watacaala markuu ka warramayay nimankii abraha iyo ciidankiisii kacbada kusoo duulay fajacalahum ka casfin bal buu ka dhigay waata culimadu dhahan waa geedka caleentiisa geedkii raashinku ka baxay midhuhu ka baxeen sida gallayda oo kale caleentii ka daadatay wey caleentiisii wey lo'daa la siiyaa arigaa la siiyaa xoolaha la sii siiyaa marka casfigu waa balkaas waa liifskaas geedkii koonka ay ka baxeen liifskiisii wey casfigu walxabbu raashinkii buu ilaahay arlada korkeeda dhigay sida gallayda dul casfi oo bal u saaxiib ah iyo warayxaanu rayxaankii buu ilaahay dhigay arlada korkeeda rayxaanka laba tafsiir baa ku jirta sida sheekh maxamed shanqadi raxmatullahi caleyhi uu tilmaamayo mid waxa weeye in la yidhahdo arrayxaan risiqa loola jeeda risiqii oo dhan marka waxay noqonaysaa min cadfi alcaami cala alkhaas qaybo ka mid a risiqii baa lasoo sheegay haddana si guud baa rayxaankii loo sheegay laakiin waxaad moodaa maadaama risiqii lasoo tilmaamay waxa laga sheekayna uu yahay nicmada ilaahay siday u ballaaran tahay ay u fara badan tahay in lagu socdo oo la yidhahdo arrayxaan geedaha carfoon ee udgoon ee arlada dusheeda ku yaala warrayxaan geeda udgoon oo caraf leh buu ilaahay arlada dusheeda dhigay habeenada qaarkood samadan arag meelaha flowersku ay ka baxaan markaad socoto carafta flowerska ka soo baxda samadan arag marka qaarkood ama geedaha dhirta qaarkood markuu roobku doo markaad dhex marayso udugga ka soo baxa udgoon baa ka soo baxay ya geed reexaan la yidhahdana wuuba jiraa oo jumcadii iyo masaajidii iyo ay soomaalidu ay keeni jirtay waxaasoo dhan baa soo gelay marka waa caam oo geed walba oo caraf leh oo udgoon ayaa soo gelay waxaan xusuustaa markaan ugandha joogay jaamacadda ugandha waa waddan greenland awey roobku kama qaabo weligeed roobkaa ka da'a aniga habeen idinka sheekeynaya jaamacadda dhexdeeda avakaadhada iyo liinta iyo mooska iyo babaayga iyo everything jaamacaddu ka dhex baxaya adoo geed wax ku akhrisan buu babaay iyo ama avakaadha kugu soo dhacaysa ama liin ama cambaha kugu soo daadanaya maangaha baa kugu soo daadanaya markaasa marka waa waddan aad u barwaaqo badan habeenkii markaad jaamacadda dhex socoto waxaa laga yaabaa inaad dhahdaan wadaadku advertisement buu samaynaya advertisement ma that's true waa real waxa weeye waa fact xaqiiqo wey markaad dhex socoto marka habeenkii flowers badan bay leedahay flowerska waxa subxaan allah waxaad moodaysaa meel jaamacadda in barafuun lagu dhex daadiyey baad moodaysa habeenkii maalintii ilaahay qadarkii ma jiro maalintii wax kuu soo carfaya ma jiro waa ma aqaan qolyihii biologiga maxay tahay waad u maranaysaa yaa biology akhristay waayo habeenkii geed ku soo carfaya ama sometimes geedaha qaarkood u soo uraan habeenkii ya there is something ma habeenkii buu geedku neefsanaya carbon buu sii daynaya habeenkii waxbaa jira ee jawiga degan ma ah waayo waxaa dhici karta habeenkii sometimes inuuna jawigu deganayn oo meesha wax ka dhex socdaan hawlo ka jiraan geedu way neefsadaan ya habeenkii ma habeenkii buu dhalaa geedku okay habeenkii buu baxaa buu leeyahay sheekh
هذا قليها بيولوجي يا ها والله دي محاسك قلقيت كأنه قلب الله اوكي جيد marka ilaahay wuxuu leeyahay war rayxaanu iyo geedihii shaqis bal geedahaasi maxaad ka haysaa warkood ha أنا waxaan isleeyahay habeenkii bay neefsadaan geedu because habeenkii meesha aan sheegay jaamacadda waxaa jirta habeenkii ardaydu iyadoo la badan yahay oo boqolaal ama ciyaari jiraan ama la socdo ama la wareegayo ama ba haddana geedka soo carfaya maalmaha qaarkood iyadoo jaamacaddii cidlo tahay oo vacation lagu kala maqan yahay oo jaamacaddii ba xidhan tahay oo arday yariba ay meeshii timid bayna soo carfayn so waxbaa there something habeenkii waxbaa la socda المهم I hope qolyaha Facebook inay la socdeen biology akhristay inay ay meelaha soo sheegi doonaan hadii nala soo socotay wal habbu ilaahay dhigay iyo war rayxaan geedii aadul casfi ee balka u saaxiibka iyo war rayxaan maxaa geedii udgoona ama geedkii rayxaanta ama geedii kale faraha badnaa udgoon kala buu ilaahay alla dushada dhigay ilaahay wuxuu yiri inta markuu sheegay oo nicmo ah fa bi ayyi alaa'i rabbikuma rabbigiin nicmooyinkiisa mideebad tukadhibaani jinni iyo insi oo beeninaysaan tatniyadani waxay ku dhacaysaa jinka iyo insiga ila iyaga mas'uuliyadda iyo culayska iyo takaaliifta sharcigu inta badan ku dhacaysa iyaga rususha loo soo diray iyaga xil saaran yahay marka ilaahay labadoodiiba aayadda lagula hadlaya suuradda waxa la leeyahay nicmooyinka ilaahay idiin galay ee faraha badan jinni iyo insi oo mideebad beeninaysaan mid aad inkiri kartaan eed oran kartaan nicmo ma ah waa midda ma jirto فبأي آلاء ربكما ربي النعموين كيس مدابة تكذبان بين الناس جني ينسيو وحنبي كسوان عليه السلام إنه يري جنك إذن كجواب في عناية جنك وي جوابين مركو النبي آية أخرى عليه الصلاة والسلام ووحي دهان إلا جني ينسي بالله الله ياي ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب نعموين كاجا إلهي ومدنا ما بيننا مركو أحرند آية مغلين ساسي دهان جنكو ساسي ده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.